السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديل كسو دوادا janaalkeena Mo Nomad. Muuqaalka maanta aan idin haynaa wuxuu ku saabsan yahay dagaalkii labaad ee dunida. Dagaalkii labaad ee dunida oo badanaa markii la qorayo loo soo gaabiyo sidan wuxuu ahaa dagaalkii ugu adkaa ee taariikhda soo maray. Wuxuu bilowday 1939 wuxuuna dhamaaday 1945. waxaa dagaalkan ku lug lahaa ama ka qayb qaatay badi wadamadii dunida. sidoo kale waxaa dhammaan ka qayb qaatay iyaguna wadamadii great powerska ahaa ama dunida markaasi ugu awoodda badnaa. dagaalkan oo ah kii labaad ee dunida wuxuu qarxay taariikhdu markii ay ahayd 1939 kadib markii ciidankii naasiyiintu ku duuleen wadanka Poland sidii uu ku bilowday dagaalkii labaad ee adduunku. muddadii u dhaxaysay 1914 ilaa 1918 oo ahayd waqtigii uu socday dagaalkii koowaad ee dunidu, waxaa xasilooni darro weyn ka abuurantay qaaradda Yurub, taasoo masraxa ku soo dhaweysay inuu bilaabmo dagaal kale oo caalami ah kaasoo noqday dagaalkii labaad ee dunida. dagaalka labaad ee dunidu wuxuu bilaabmay 20 sano kadib dagaalkii koowaad ee dunida, wuxuu noqday dagaalkani mid ka khasaaray iyo burbur badan dhammaan dagaaladii soo maray dunida. kacdoonkii dhanka awoodda ee dowladda Jarmalka oo markaasi dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan ahayd mid aan fadhiyin, Adolf Hitler oo ahaa hogaamiyihii ururkii naasiyiinta ayaa shacabka Jarmalka hubeeyay, waxaana heshiisyo istiraatijiyadeed la saxiixday wadamadii Talyaaniga iyo Japan si uu uga dhabeeyo qorshihiisii ahaa inuu dunida taladeeda maroorsado. sanadku markuu ahaa 1939 hogaamiyahan mayalka adag ee Adolf Hitler ayaa weeraray dalka Poland. weerarkan kooxdii naasiyiintii Jarmalka ee uu hogaaminayay Adolf Hitler ay ku qaadeen wadanka Poland ayaa sababay in wadamada boqortooyada Ingiriiska iyo Faransiisku ay ku dhawaaqaan dagaal ka dhana Germany, taasoo noqotay barbilowgii dagaalkii labaad ee adduunka. 6 sano ee soo socda dagaalkani wuxuu sababsan doonaa nolosha dad aad u badan, wuxuu sidoo kale burburin doonaa dhul iyo hanti badan oo dunida inteeda badan ah. tirada dadka ku nafwaayay dagaalkan labaad ee dunida oo lagu qiyaaso 45 ilaa 60 milyan oo qof, waxaa ka mid ahaa dadkaasi 6 milyan oo qof oo Jews ah ama Yuhuuda oo lagu xasuuqay xeryihii ciidamadii naasiyiinta. xasuuqan ayaa qayb ka ahaa qorshihii la magac baxay Holocaust, kaasoo hogaamiyey Adolf Hitler uu rabay inuu dadka Yuhuudda ah qaaradda Yurub kaga tirtiro. carqaladihii uu ka tegay dagaalkii koowaad ee adduunku ayaa qaaradda Yurub ka dhigay mid aan xasiloonayn. kadib markii uu dhamaaday dagaalkii koowaad ee dunidu, arrimo badan oo ahaa kuwo aan la xallin ayaa sabab u noqday inuu qarxo dagaalka labaad ee dunidu, gaar ahaan xasilooni darradii dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ka jirtay wadanka Jarmalka. sidoo kale awooddii uu yeeshay hogaamiyihii xagjirka ahaa ee Adolf Hitler iyo xisbi siyaasadeedkiisii la odhan jiray National Socialist German Workers' Party oo loo soo gaabiyo NSDAP, luqadda Ingiriisigana la odhan jiray Nazi Party, ayaa iyaduna baasiinka kusii shubtay sidii uu qarxi lahaa dagaalka labaad ee adduunku. taariikhdu markay ahayd 1933 Adolf Hitler ayaa noqday janaraalkii ugu sarreeyay ciidamada Jarmalka. sanad kadib markuu xukunka qabtay oo ku beegnayd sanadkii 1934 wuxuu maroorsaday awoodii dalka isagoo isku magacaabay Führer oo ah kelmad Jarmal loona macnaa the supreme leader, macnaheedu af Soomaali ahaan noqonayo hogaamiyihii ugu sarreeyay. Adolf Hitler ayaa aad u aaminsanaa aragtida ah in dadka Jarmalka u dhashay ay dadka kale ee dunida ka sarreeyaan, wuxuuna u bixiyay magaca ah Aryan. hogaamiyahan mayalka adag ayaa aaminsanaa sida kaliya dadka Jarmalku nolol heer sarreysa ku heli karaan inay tahay dagaal, sidaasina ay dunida ugu fidi karaan. bartamihii sanadkii 1930 wuxuu si hoose u bilaabay Adolf Hitler inuu ciidankii Jarmalka hubeeyo. arrinkan ayaa ahaa mid ka hor imaanaya heshiiskii Versailles Treaty oo ahaa kii lagu heshiiyey si loo soo afjaro dagaalkii koowaad ee dunida. hogaamiyahan mayalka adag ayaa sidoo kale heshiis isbahaysiya la saxiixday wadamada Talyaaniga iyo Japan iyagoo ka dhan ahaa midoogii Sovieti. kadib
heshiiskan isbahaysiga ah ee uu la galay wadamada Talyaaniga iyo Japan sanadkii 1938 Hitler wuxuu ciidamo u diray dalka Austria si uu u qabsado. isla sanad kadibna wuxuu raaciyay oo ciidamadiisii geliyay wadankii la oran jiray Czechoslovakia oo waqtigan kala laba dal oo la kala yiraahdo Czech Republic iyo Slovakia. weerarada Adolf Hitler ayaa waqtigaasi noqday kuwo aan la saadaalin karin. dhinaca kale wadanka Mareykanka iyo Midowgii Sofiyeeti ayaa ahaa kuwo iyagu waqtigaasi ku mashquulsanaa arrimo dalalkooda gudihiisa ah. sidoo kale wadamada Faransiiska iyo boqortooyada Ingiriiska oo ahaa kuwii dhibaatooyinkii ugu badnaa la kulmay intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunku ayaa ahaa kuwo aan waqtigan wax xiiso ah u hayn inay dagaal qaadaan. dabayaaqadii sanadkii 1939 Adolf Hitler iyo hogaamiyihii Midowgii Sofiyeeti Joseph Stalin ayaa wada saxiixday heshiiskii la magac baxay German-Soviet Non-Aggression Pact. heshiiskan ayaa walwal xooggan ka abuuray caasimadaha London iyo Paris. heshiiskan Hitler iyo Stalin ay galeen waxay ogolaadeen labada hogaamiye inaanay 10 sano ee soo socda wax dagaal militari ah iskaga hor imaan labadii quwadood ay kala hogaaminayeen waa Jarmalka iyo Midowgii Sofiyeeti. heshiiskan ay galeen labadan hogaamiye ayaa mid kasta dhinaciisa ka eeganaya dantiisa. dhinaca Stalin oo hogaamiyihii Midowga Sofiyeeti wuxuu heshiiskan u galay si uu dhinaca militariga dalkiisa uga dhiso. dhinaca kale Adolf Hitler oo lahaa qorshe fog inuu wadanka Poland qabsado ayaa heshiiskan u galay si aan wax dagaal ah la kulmin Midowgii Sofiyeeti xilliga uu Poland weerarayo. weerarka Hitler uu ku doonayay inuu ku qabsado wadanka Poland ayaa mid ka mid ah sababaha ugu xooggan ee uu ku bilowday dagaalka labaad ee adduunku, maadaama wadamada boqortooyada Ingiriiska iyo Faransiisku ay wadanka Poland u ballan qaadeen inay difaaci doonaan haddii weerar kaga yimaado dhinaca Jarmalka. heshiiskii Hitler uu la galay Joseph Stalin ayaa qorayay inaan ciidanka Hitler xilliga uu ku jiro qabashada wadanka Poland aanu laba jiho weerar kaga kala iman doonin, isla markaasina dhinaca ciidanka Hitler Poland ka soo weerara mooyee dhinaca kale ay caawimaad ka heli doonaan ciidamadii Sofiyeetka oo hogaaminayay Joseph Stalin. sidaasina ay ugu sahlanaan doonto ciidanka Hitler inuu ku qabsado wadanka Poland. taariikhdu markay ahayd 1 bishii 9 1939 Hitler ayaa dhinaca galbeedka ka soo duulay wadanka Poland. 2 cisho kadib duulimaadkii Hitler wadamada Faransiiska iyo Britain ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana wadanka Jarmalka. sidaasina waxaa ku bilowday dagaalkii labaad ee adduunka. taariikhdu markay ahayd 17 bishii 9 ciidamadii Sofiyeetka ayaa iyaguna dhinaca bari kaga soo duulay wadanka Poland. wadanka Poland ayaa markan labada dhinac duulimaadka kaga yimi ay sababtay in markiiba si fudud looga adkaado. bilowgii sanadkii 1940 ciidankii Hitler iyo kuwii Sofiyeetka ayaa kala qaybsaday gacan ku haynta wadanka Poland. kala qaybsiga ciidanka Hitler iyo kuwa Stalin hogaaminaya ay kala qaybsadeen gacan ku haynta wadanka Poland ayaa si sir uga mid ahaa heshiiskii labadan hogaamiye galeen ka hor intaanu dagaalku bilaaban. kadib qabsashada Poland ciidanka Midowga Sofiyeetku waxay ku ruqaansadeen si ay u qabsan lahaayeen wadamadii la isku oran jiray Baltic States ee Estonia, Latvia iyo Lithuania. waxay sidoo kale dagaal kaga adkaadeen ciidankii Finland oo iska caabin sameeyay dagaalkii la magac baxay Russo-Finnish War ay la galeen Midowga Sofiyeeti. dhinaca kale waxaa xagga badda dagaalo aad u ba'an iskaga hor yimi ciidamadii Jarmalka iyo kuwii Ingiriiska. gujisiyadii ciidanka Jarmalka ee la oran jiray U-boats ayaa weerar ku ekeeyay doonyihii ganacsiga ee dalka Britain laga lahaa. 4 bilood ugu horeysay dagaalkii labaad ee adduunka gujisiyadii ciidanka Jarmalka ayaa qoosiyay in ka badan 100 doonyood oo dhinaca Britain laga lahaa. furinta galbeed 1940 ilaa 1941 sagaalkii bishii afraad 1940 dowladda Jarmalka ayaa si wada jir dhinacna u weerartay dalka Norway dhinaca kalena qabsatay wadanka Denmark. sidaasina waxaa si dhab ugu bilowday dagaalkii labaad ee dunida. taariikhdu markay ku beegnayd
tobankii bishii shanaad ee isla sanadkaas, dowladda Jarmalku waxay dhulka la sintay ama ay xaaqday ciidamadii dowladda Belgiumka iyo kuwii Netherland ama Holland, waxayna labadaasi dal kaga gacan sarreysay dagaalkii la magac baxay Blitzkrieg oo ah kelmad Jarmal ah micnaheeduna noqonayo dagaalkii Hilaaca. Isla 3 maalmood kadib markii Jarmalku cagta mariyay wadamada Belgiumka iyo Netherland, ciidamadii Hitler ayaa ka gudbay webiga la yiraahdo Meuse River. Webigan ayaa mid ka mid ah kuwa la isaga gudbo qaaradda Yurub, marana wadamo ay ka mid yihiin Belgiumka iyo Faransiiska. Markii ciidamadii Hitler ay ka gudbeen webiga, waxay weerar ku ekeysiyeen ciidamadii Faransiiska ee ku sugnaa Sedan oo ah ku taala dhinaca waqooyiga shishe ee Maginot Line, oo ah dhisme ciidanka Faransiisku dagaalkii koowaad markuu dhammaaday ay ka dhisteen dhinaca uu xadka kala wadaago Jarmalka. Dhismahan oo ciidanka Faransiisku u arkayay xadka kaliya in ciidanka Jarmalku ka soo gudbi karin, ayaa waxaa beeniyay arrinkaasi ciidamadii xoogga badnaa ee Jarmalka ee uu hogaaminayay hogaamiyihii mayalka adkaa ee Adolf Hitler, kuwaasi oo ku soo weeraray gidaarkaasi taangiyo iyo diyaarado, sidaasna ku jebiyay gidaarkii Maginot Line, kana dhigay midaan waxtar lahayn, isla markaana gudaha u galay dalweynihii Faransiiska. Weerarkan ciidanka Jarmalku Faransiiska kaga soo qaaday dhinaca waqooyi ayaa kala goysay ama wadada ka xidhay in ciidamadii Ingiriisku u soo gurmadaan Faransiiska. Dabayaaqadii bishii shanaad, waxaa isla markiiba ciidamadii socdaalka ee Ingiriiska badda lagaga soo daadgureeyay dhinaca waqooyi, iyagoo badda ka soo galayay tuulada la yiraahdo Dunkirk. Isla waqtigaasi, dhinaca koonfurta, Faransiiska ayaa ciidamadiisii sameeyeen iska caabin ay kaga hortagayeen ciidanka Jarmalka ee uu hogaaminayay Hitler. Iska caabintaasina waxay noqotay mid ay ciidanka Faransiisku ku halaagmeen. Marka xaalku halkaasi marayo, ciidankii dowladda Faransiiskuna qarka u saaran yahay inuu burburo gabi ahaanba, kaligii taliyihii fashiiska ahaa ee waddanka Italy waqtigaasi ka talinayay ee Benito Mussolini ayaa isbahaysi la samaystay hogaamiyihii ciidanka Jarmalka ee Adolf Hitler. Isbahaysigan ayaa la magac baxay The Pact of Steel. Sidaasina taariikhdu markay ku beegnay 10kii bishii 6aad, dowladda Talyaaniga ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhana wadamada Faransiiska iyo Britain. Isla 14kii bishii 6aad, ciidamadii Jarmalka ayaa gudaha u galay caasimadda Faransiiska ee Paris. Waxaa isla waqtigaasi dalka Faransiiska laga dhisay dowlad cusub oo uu sameeyay Marshal Philippe Pétain. Marshaalkan oo ah halyeygii Faransiiska ee dagaalkii koowaad ee dunida ayaa isla 2 ayaamood kadib soo gelitaankii ciidanka Jarmalka gudaha u soo galeen caasimadda Faransiiska dalbaday heshiis xabad joojin ah. Waqtigan, dalweynihii Faransiisku wuxuu u kala qaybsan yahay 2 qaybood oo kala ah: qayb hoos timaada ama ay ka taliyaan ciidankii militariga ah ee dalka Jarmalku, iyo qayb uu xukumo Marshaalkan dowladda cusub soo dhisay ee Pétain. Waqtigan, hogaamiyihii mayalka adkaa ee Hitler wuxuu diiradda dagaalka u jeediyay dhinaca Britain, maadaama Britain ay ka go'onayd juqraafi ahaan inta kale ee qaaradda Yurub, waxayna taasi u fududeysay inay hesho istiraatiijiyad difaac oo wanaagsan. Si loogu gogol xaadho duulaan xoog leh, waxaa bilaabmay weerarkii la magac baxay Libaaxii Badda. Bishii 9aad ee isla sanadkaasi 1940, diyaaradihii dagaalka ee ciidanka Jarmalka ayaa duqeymo ka bilaabay dalweynaha Britain, waxayna duqeymahaasi socdeen ilaa bishii 5aad ee sanadkii 1941. Duqeymahan oo dowladda Jarmalku ugu magac dartay The Blitz oo la micno ah Hilaaci, ayaa waxay xilliyada habeennimada weeraro la beegsanayeen gudaha caasimadda London iyo xarumaha wax soo saarka ee dalkaasi Britain, waxaana weeraradaasi sababsadeen dhimashada qaar badan oo ka mid ah shacab rayida iyo khasaare dhaqaale. Dhinaca hawada, ugu dambeyntii diyaaraddii Royal Air Force ee dalka Ingiriisku lahaa ayaa ka adkaatay diyaaraddii Luftwaffe ee ciidanka Jarmalku u isticmaalayay weerarada dhinaca cirka. Sidaasina kaligii taliyihii Hitler wuxuu hakiyay qorshihiisii ahaa inuu qabsado dalweynaha Britain. Ciidanka Britain oo isticmaalaya awooddiisii ugu dambeysay ee dhinaca difaaca,
ra'iisul wasaare Winston Churchill oo waqtigaasi hogaaminayay Britain ayaa gacan aad u weyn ka helay dhinaca dowladda Mareykanka iyagoo isticmaalayay heshiiskii Land Lease Act oo ahaa sharci uu Koongareeska Mareykanku meel mariyay bilowgii sanadkii 1941. Sharcigan ayaa dhigaya dowladda Mareykanku inay hubka dagaalka amaahin karto ama ay ka kirayn karto cid walba oo ay u aragto inay muhiim u tahay amniga dalka Mareykanka. Hitler iyo Stalin qorshihii Barbarossa oo ahaa 1941 ilaa 1942 bilowga sanadkii 1941 wadamada Romania iyo Bulgaria ayaa ku soo biiray isbahaysigii Jarmalku horkacayay ee la magac baxay The Axis. Isla bishii afraad ee sanadkaasi ciidankii Jarmalka ee uu hogaaminayay Hitler waxa uu cagta mariyay wadamada Yugoslavia iyo Greek. Qabsashadan ciidanka Jarmalku qabsaday wadamada Balkaniska ayaa hordhac u ahayd qorshihii dhabta ahaa ee Hitler. Qorshahaasi oo ahaa sidii uu qabsan lahaa Midowgii Sofiyeeti. Qabsashada dhulka baaxadda leh Midowga Sofiyeeti ayaa ahaa kan kaliya ee reerka uu ka soo jeedo Hitler ay ku guuleysan lahaayeen qorshihiisii Lebensraum uu ugu magac daray oo ahaa in dalka Jarmalka u dhashay ee uu bixiyay Aryanku ay helaan nolol aad ugu heer sarreysa tan dadka kale ee qaaradda iyo dunida inteeda kala degani ay haystaan. Qorshaha kale ee uu hogaamiyahan kaligii taliyaha ee Hitler uu dagaalka ka lahaa ayaa ahaa sidii uu dadka Jewska ama Yuhuudda uga dabargoyn lahaa wadamada uu ka taliyo ciidankiisu. Qorshayaasha xalka ugu dambeeya ayaa la soo bandhigay waqtigii weerarka Soofiyeedka waxaana uu qorayay in 3 sano ee soo socota in ka badan 4 milyan oo Yuhuuda lagu xasuuqi doono xeryaha dhimashada ee laga sameeyay Poland oo Hitler ka talinayay markaasi. Taariikhdu markay ku beegnayd 22kii bishii 6 1941 Hitler ayaa dalbaday weerar ka dhana Midowga Sofiyeeti waxaana weerarkan ugu magac daray qorshihii Barbarossa. Waqtigaasi taangiyada iyo diyaaradaha Sofiyeedku waxay aad uga badnaayeen kuwa Jarmalka laakiin tiknoolajiyadda duulista ee Ruushka ayaa inta badan ahayd mid duugowday. Saamaynta duulaanka lama filaanka ah ayaa ka caawisay ciidamadii Jarmalku inay 200 oo mayl u jirsadaan caasimadda Ruushka ee Moscow bartamihii bishii 7. Khilaafkii u dhaxeeyay Hitler iyo taliyaashiisii ayaa hakiyay horusocodka tallaabadii taas xigtay siday u qaadi lahaayeen waxaana sidaas ku gaadheen bishii 10aad ee sanadka. Sidoo kale duulimaadyadii iska caabinta ahaa ee ciidanka Soofiyeedka iyo cimiladii jilaalka oo aad u sii qabowday ayaa saameeyay sidii uu ciidanka Jarmalku hore ugu sii socon lahaa dhulka Soofiyeedka. Furuntii badweynta Pacifiga 1941 ilaa 1943 iyadoo Britain ay dagaal ku wajahayso Jarmalka gudaha qaaradda Yurub. Mareykanku wuxuu ahaa qaranka kaliya awood u leh inuu ka dagaalamo gardarrada Japan iyagoo dabayaaqadii 1941 qorshahooda ku daray ballaarinta dagaalka ay kula jiraan Shiinaha iyo qabsashada hantida gumaystaha Yurub ee bariga fog. Taariikhdu markay ku beegnayd 7 bishii 12 1941 360 diyaaradood oo ciidamadii Japan ah ayaa weeraray saldhigga ugu weyn ee ciidamada badda ee Mareykanka ee Pearl Harbor ee Hawaii isagoo weerarkan noqday mid ay ka yaabeen Mareykanku sidoo kalena galaaftay nolosha in ka badan 2300 oo askartii Mareykanka ka mid ah. Weerarkii Pearl Harbor wuxuu suurtageliyay inuu mideeyo ra'yiga dadweynaha Mareykanka waxayna ku qasabtay Mareykanku inuu ka qayb galo dagaalkii labaad ee adduunka. Isla bishii 12 Koongareeska Mareykanku wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhana Japan. Hal cod oo diidma mooyee dhammaan intii kale ee xubnihii Koongareesku waxay u codeeyeen in Mareykanku ka qayb galo dagaalka labaad ee adduunka. Kadib go'aan ka soo baxay dawladda Mareykanka, Jarmalka iyo xulafadiisii Axis Powerska ay ka mid ahaayeen Japan iyo Italy waxay isla markiiba ku dhawaaqeen dagaal ka dhana Mareykanka. Kadib guulo badan oo isku xigay oo uu gaaray ciidanka dalka Japan, ciidankii badda Pacific ee Mareykanka ayaa ku guuleystay dagaalkii la magac baxay Battle of Midway bishii 6 ee sanadkii 1942. Guushan ciidanka Mareykanku gaadhay ayaa dagaalkii weji kale u yeeshay. Dhinaca Guadalcanal oo ah koonfurta mid ka mid ah jasiiradaha Solomon ee badweynta Pacifiga, xulafadii ay horkacayeen Mareykanka iyo Ingiriisku
waxay guulo ka gaadheen dagaallo xidhiidh ah oo ay la galeen ciidamadii Jabbaan. Dagaaladan ayaa bilowday bishii 8 1942 socdayna ilaa bishii 2 sanadkii 1943. taariikhdu markay ku beegnayd bartamihii sanadkii 1943 ciidamada badda ee xulafadii Mareykanku hogaaminayay waxay bilaabeen weeraro rogaal celis ah oo ka dhan ah Jabbaan, kuwaas oo weeraro isdaba joog ah ku qaadeen jasiiradaha muhiimka ah ee Jabbaanku haysto ee Pacifiga. Istiraatiijiyadan lagu weeraray jasiiradihii uu Jabbaanku haystay ayaa noqotay mid lagu guuleystay. ciidamadii huwanta uu Mareykanku hogaaminayay waxay u soo dhawaadeen hadafkoodii ugu dambeeyay ee ahaa inay ku duulaan dhulweynaha Jabbaan. guushii isbahaysiga ee dagaalkii labaad ee adduunka 1943 ilaa 1945 waqooyiga Afrika. sanadku markuu ahaa 1943 ciidamada Ingiriiska iyo Mareykanku waxay dagaal kaga adkaadeen Talyaaniga iyo Jarmalka. intaasi waxaa sii raacay in xulafadii Mareykanka iyo Ingiriisku ay qabsadeen jasiiradii Seychelles. intaasi kadib dowladdii Mussolini ayaa dhacday bishii 7 ee 1943 inkastoo ciidamada huwanta Mareykanka iyo Ingiriisku ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada Jarmalka iyo Talyaaniga, waxaana dagaalku socon doonaa ilaa 1945. dhanka bariga, weerarka hortaga oo ay sameeyeen ciidamadii Soofiyeedka ayaa bilaabmay bishii 11 1942. sidaasna weerarkani wuxuu soo afjaray dagaalkii la magac baxay Battle of Stalingrad. dagaalkan ayaa mid ka mid ah iska horimaadyadii ugu xumaa ee dagaalkii labaad ee adduunka. jiilaalkii oo soo dhawaaday oo ay weheliso cunnada iyo sahayda caafimaadka oo sii yaraanaysa ayaa soo afjartay ciidamadii Jarmalka ee halkaas joogay. ugu dambeyntiina waxay ciidamadii Jarmalku isdhiibeen taariikhdu markay ahayd 31 bishii 1 ee sanadkii 1943. 6 bishii 6 1944 waxaa loo dabaaldegay maalinta la magac baxday D-Day. ciidamadii huwanta ee Mareykanka iyo Ingiriisku hogaaminayeenna waxay bilaabeen duulaan ballaadhan oo ay ku qabsanayaan qaaradda Yurub. 156,000 oo askar British, Canadian iyo Amerikaan ayaa ka soo degay xeebaha Normandy ee dalka Faransiiska. Adolf Hitler, hogaamiyihii mayalkaadka, ayaa isagoo ka jawaabaya duulaanka soo cusboonaaday ee ciidamada xoogga badani kaga soo degeen xeebaha Faransiiska, waxa uu dhammaan intii ka hadhay ciidankiisa ku shubay galbeedka Yurub, isagoo xoojinaya jiidda bari oo ciidankii Jarmalku guuldarro kala kulmeen. ciidamada Soofiyeedka ayaa si degdeg ah u soo galay Poland, Czechoslovakia, Hungary iyo Romania, halka Hitler uu soo ururiyay ciidamadiisa si uu Mareykanka iyo Ingiriiska uga soo celiyo Jarmalka. dagaalkii la magac baxay Bulge oo bilaabmay bishii 12 sanadkii 1944 socdayna ilaa bishii 1 ee 1945. dagaalkan ayaa noqday weerarkii ugu dambeeyay ee ciidanka Jarmalku galaan intii uu socday dagaalkii labaad ee dunidu. bishii 2 1945 duqeymo xoogan oo xagga hawada ah ayaa ay ciidamadii huwantu la beegsadeen dhulweynihii Jarmalka inta aanay qabsan ka hor. kadib duqeymahan, taariikhdu markay ahayd 8 bishii 5 ciidanka Jarmalka ayaa si rasmi ah isu dhiibay. ciidamadii Soofiyeedkuna sidaasi ayay ku qabsadeen inta badan dhulweynihii Jarmalka. waqtigan ay ciidanka Soofiyeedku qabsanayaan dhulka Jarmalka, hogaamiyihii mayalkaadka ee Adolf Hitler ma aha mid nool ee waa uu dhintay, isaga ayaana gacantiisa isku dilay taariikhdu markay ahayd 30 bishii 4 isla sanadkaasi ee 1945. dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka 1945 shirkii Potsdam ee socday bishii 7 ilaa bishii 8 sanadkii 1945 madaxweynaha Mareykanka Harry S. Truman kaasoo xafiiska qabtay kadib dhimashadii Roosevelt, Churchillkii ra'iisul wasaaraha ka ahaa Ingiriiska, iyo Joseph Stalin-kii dhalasho ahaan ka soo jeeday Georgia laakiin ahaa hogaamiyihii midowga Sofiyeeti, waxay ka wada hadleen dagaalka socda ay kula jiraan dalka Jabbaan iyo sidoo kale sidii nabad looga dhalin lahaa dalka Jarmalka.
dagaalka labaad ee adduunka kadib, Jarmalka waxaa loo kala qaybiyey 4 aag oo la haysto si ay u maamulaan Midowga Sofiyeeti, Ingiriiska, Mareykanka iyo Faransiisku. Arrintii kala qaybsiga wadamadii bariga Yurub, Churchillkii Ingiriiska iyo Trumankii Mareykanku waxay aqbaleen rabitaankii Stalinkii Sofiyeetka ee ahaa inuu isagu keligii haysto bariga Yurub. Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa Stalin u ogolaaday maadaama ay u baahnaayeen iskaashiga Sofiyeetka ee dagaalka ka dhanka ah Japan. Taariikhdu markay ahayd 1945 bishii 2 ilaa bishii 6 waxaa dhacay 2 weerar oo ay isaga hor yimaadeen ciidankii Japan iyo kuwii Mareykanku. Weeraradan ayaa dhaliyay khasaare aad u badan, waxayna sii siyaadiyeen weeraradani cabsidii laga qabay in ciidanka Japan ay qabsadaan dhul hor leh. Waxayna cabsidani horseeday Trumankii horkacayay Mareykanku inuu ogolaado isticmaalka hub cusub oo si ba'an u xukumaadi kara. Intii dagaalku socday, waxaa jiray mashruuc weyn oo si sir ah hoosta uga socday, kaasi oo la magac baxay The Manhattan Project. Waxaana qorshahan daaha lagaga fayday hubka noociisu aan dunida cidina hore u haysan ee atomic bombka ama waxa loo yaqaano nuclearka. Bilowgii bishii 8 sanadkii 1945, hubkii atomic bombka ama nuclearka ayaa dawladdii Mareykanka ku duuqeeyeen magaalooyinkii Japan ee Hiroshima iyo Nagasaki. Dhinaca kale, 15kii bishii 8 ee isla sanadkaasi, dawladdii Japan waxay soo saartay bayaan ay ku cadaynayso inay ogolaatay qodobadii ka soo baxay mashruucii la magac baxay Potsdam Declaration. Potsdam Declaration wuxuu ahaa shir ay qodobo ka soo saareen Mareykanka, Ingiriiska iyo China bishii 7 ee sanadkii 1945, iyagoo ciidankii iyo dawladdii Japan ka dalbanaya inay si shuruud la'aan isu dhiibaan. Sidaasina, dawladdii Japanku waxay bishii 8 ogolaatay inay isdhiibaan. Bishaa xigtay ee 9aadna generaalkii ugu sarreeyay ciidanka Mareykanka ayaa aqbalay isdhiibitaanka ciidanka Japan. Intii dagaalka labaad socday, waxaa jiray ciidamo madow ah ama African Americana kuwaas oo u dagaalamay dawladdii Mareykanka. Dagaalkii labaad ee adduunku waxa uu daaha ka fayday khalkhal muuqda oo ka dhex jira ciidanka Mareykanka. Inkastoo in ka badan 1 milyan oo African American ay u adeegeen Mareykanka si ay uga adkaadaan Naasiyiinta iyo fashiistaha. Siyaasadihii Jim Crow ee takoorka ahaa ee ku dhex faafay bulshada Mareykanka ayaa waxaa sii xoojiyay militariga Mareykanka. Askarta madowga ee ka qayb qaadanayay dagaalka labaad marar dhifa ay arkayeen dagaal, waxaana inta badan loo celceliyay ama lagu hayay qaybaha shaqada iyo saadka oo ay amarka lahaayeen saraakiisha caddaanka ah. Waxaa jiray dhowr cutub oo African Americana kuwaas oo cadeeyay inay lagama maarmaan u ahaayeen caawintii guushii dagaalkii labaad ee adduunka ay ka gaadheen ciidanka Mareykanku. Dhinaca kolonyooyinkii xamuulka ugu badnaa, dareewalladii madowga ahaa ayaa mas'uul ka ahaa gaadhsiinta alaabta muhiimka ah ciidamada jiidda hore ee Faransiiska. Guutada 761 oo ahaa ciidamadii taangiyada ahaana ciidamo madow ah ayaa sidoo kale ka dagaalamay dagaalkii Bulge. Sidoo kale, qaybta 29aad ee ciidanka lugta oo iyaguna ahaa ciidamo madow ah waxay dagaal dhulka ah ku qaadeen Talyaaniga. Hase yeeshee, inkastoo ay ciidamadii madowgu door weyn ku lahaayeen jabinta fashiistaha kadib dagaalkii labaad ee adduunka, askarta Afrikaanka waxay sii wadeen dagaalka ay ugu jiraan sidii ay sinaan ku heli lahaayeen. Markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunku, askartii madowga ahayd ee Mareykanka waxaa lagu reebay cutubyada qaar, waxaana looga dhiibay jagooyin ama xilal hoose. Khasaarihii laga dhaxlay dagaalkii labaad ee adduunka. Dagaalkii labaad ee adduunku wuxuu cadeeyay inuu ahaa iska horimaadkii caalamiga ahaa ee ugu dhimashada badnaa taariikhda, kaasoo galaaftay nolosha 60 ilaa 80 milyan oo qof oo ay ku jiraan 6 milyan oo Yuhuud ah oo ku dhintay gacmaha Naasiyiinta xilligii Holocaust ee xeryaha dagaalka lagu xasuuqayay Yuhuudda. Dadka rayidka ayaa lagu qiyaasay 50 ilaa 55 milyan
inay ku dhinteen dagaalkii labaad ee adduunka. Dhinaca milatariga, 21 ilaa 25 milyan oo askari ayaa nafahooda ku waayay dagaalka. Malaayiin kale oo ka mid ah ciidamadii ka qayb qaatay dagaalka ayaa iyaguna sidoo kale ku dhaawacmay. Kuwo badan oo kale oo ciidanka ka mid ahaana waxay ku waayeen guryahoodii iyo hantidoodii. Dhaxalka dagaalkani waxaa kaloo ka mid ahaa faafitaanka shuuciyaddii Midowga Sofiyeeti ay ku faaftay bariga Yurub iyo sidoo kale guushii ay Sofiyeetku ka gaadheen Shiinaha. Waxyaabihii uu dhaxal ahaan uga tegay dagaalkii labaad ee adduunku waxaa sidoo kale ka mid ahaa awooddii caalamiga ahayd ee dunida oo ka soo wareegtay reer Yurub una soo wareegtay labada dhinac ee dunida markaasi ka noqday global superpowers, waa Maraykanka iyo Midowga Sofiyeeti, oo dhowaan iyagu fooda isku dari doona dagaalkii la magac baxay The Cold War ama dagaalkii qaboobaa. Haddii aad channelkeena Monomar ku cusub tahay, fadlan ha ilaawin inaad subscribe saarto gambaleelkana furato si aad u hesho dhammaan muuqaalada aan soo gelin doono. Haddii aad asxaabteennii Monomar ka mid tahayna, sidoo kale ha ilaawin sheerta, like-ta iyo inaad commentiga nagula wadaagto wixii su'aal ama aragti aad qabto. Mahadsanid.